Asalaamu calaykum daawada halkan waxaa kugu soo gudbinayaa sababaha keena baabasiirka iyo calaamadaha lagu garto iyo sida ugu fudud ee looga hortagi karo iyo sidoo kale cuntooyinka uu qaadan karo qofka uu hayo baabasiirka iyo cuntada ay tahay inaad iska ilaaliso haddii aad qabto baabasiirka. Intaas oo dhan halkan ayaa kugu soo gudbinayaa insha Allah si aad ugaga bogato muuqaalkan dhameyso. ugu horeen waa in fahanaa waxa uu yahay baabasiir. Baabasiirku waa marka uu dhiig ka buuxsamaan kadibna uu barro qaybta saxarada kadibna waxa uu isku bedelaa nabar xanuun badan. Baabasiir waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco kaliya ayaa dareemi kara xanuunkiisa. Baabasiirka waxa uu u kala baxaa laba qayb. Kan koowaad waa mid ka soo baxa wareegga qaybta hore ee saxarada. Kan labaadna waa mid ka soo baxa gudaha meesha ay saxarada ka timaado. Haddaba maxaa sababa cudurkan baabasiirka ah? Sababaha ugu weyn ee keenta waa calool fadhiga qofka aan saxaroon 3 maalin ama ka badan. Qofka marka ay saxarada ku adkaato waxa uu isku dayaa inuu ku soo saaro si qasab ah, taas oo keenta inuu dhiig ka yimaado qaybta saxarada kadibna ay xogto gidaarka, taas oo keenta inuu dhiig meesha fariisto. Sidoo kale waxa uu ku dhici karaa hooyada uurka leh. Sababta uu hooyada uurka leh ugu dhici karo waxaa ka mid ah hooyada markii ay uurka qaado 25 isbuuc ee ugu horreysay wixii ka dambeeyo maalin ka dambeysa caloosha waa ay sii weynaanaysaa waayo cunuga ayaa sii koraya. Weynikaas waxa uu culays saaraya xididada qaybta saxarada kadib dhiig ayaa meesha dulka fariisanayo sidaas ayuu baabasiirku noqonayaa. Sababta loo arko dhiiga waxa waaye in saxarada oo adag lagu qasbo meesha ay saxarada ka soo baxdo taasoo keenta in uu gidaarka xoqo. Calaamadaha lagu aqoonsado baabasiirka waxa ugu horeeya cuncun laga dareemo qaybta dulka ee saxarada ka soo baxdo. Sidoo kale waxaa lagu gartaa in saxaro si fudud kaaga timaado adigoo warba u hayn iyo in saxarada aad ku aragto dhiig cas iyo xanuun zaid ah oo aad dareento marka aad saxaroonayso. Haddaba sidee ayaan uga hortagi karaa baabasiirka? Kow waa in aad cuntooyinka qalfoofka leh sida galleyda, qamadiga, cambuulada iyo tufaaxa iyo in aad cabto biyo badan maalin kasta iyo caanaha geela. Sidoo kale isticmaal saliid macsaro kuna cuntada aan kor ku soo sheegay waayo cuntooyinkaas waxay ka saacideynayaan in aad saxarooto. Sidoo kale waxaa iska ilaalisa in aad saxarada si qasab ah iskaga keento iyo caanaha lo'da, mooska badan iyo fadhiga zaidka ah. Haddii aad baabasiir iskaga shakiso sida ugu dhaqsiyaha badan dhakhtar ogaad. Waxaa lagu soo qorayaa daawooyin waana ku bogsan doontaa insha Allah. Ana u maleynayo inuu yahay cudur xun. Waxaan rajeynayaa in aad wax badan ka ogaatay. Haddii uu ku anfacay muuqaalkan share si ay dad kale uga faa'iideystaan. Amaana Allah. Walkaasanu bogaaniga waa kuwa badangala balweenta yaan laga boojeenin walkaasanu bogaaniga waa kuwa badangala balweenta yaan laga boojeenin walkaasanu bogaaniga waa kuwa badangala balweenta yaan laga boojeenin.